kusoo dhawaada maadada cell biology-ga. casharka hore midkan ka horeeya waxaan ugu soo hadalnay taariikhda maadada, yacni waqtigii la aasaasay maadada, sidoo kale dadkii aasaasay markaan leenahay yacni waxaan ka wadnaa maadada waqtigii lasoo ikhtiraacay amba saynis yahanada markii ay maadadan inay jirtay ogaadeen waxa loo yaqaano selka, iyo sidoo kale dadkaas magacahoodii, sanadkii, tijaabooyinkii lasoo sameeyey. casharka intaasaa looga soo hadlay. kanna waa kii labaad marka oo qaybta introductionka ku jirnaa weli. haddana waxaan baro doonaa marka selka waxa uu yahay ayaanu baranaynaa haddii ilaahay ogolaado. cell size kan fiirinaynaa. The cell size is variable. selka waa lagu kala duwan yahay marka sizekiisa. In the living organism, the cell size may be small as millionth of meter or may be as large as few centimeter. waxaa leeyahay marka living organism marka aan fiirino selka wuuna yaraan karaa oo wuxuu noqon karaa small ayuu noqon karaa ama large ayuu noqon karaa iyadoo loo fiirinaa weli muxuu ahay centimeters. Okay, usually marka all the cells are microscopic in size and aren't visible to the naked eye. waxaan hadda aan ka hadlayno cellskan aan leenahay amba waa dheeri amba waa gaaban yahay aan leenahana markasta waxaa lagu fiirinaa xawaa microscope waay maahane ishayna laguma arkaayo. Thus they need to be enlarged by the microscope for seeing. waxay u baahan yihiin marka in microscope la isticmaalo ee la weyneeyo, microscope-kaas la weyneeyo si loo arko muxuu ahaa isheg cellskan si loo arko. Okay, question ay imaaday. What is the smallest and largest cell? shayga lagu dhahay selka ugu yar iyo selka ugu weyn. The smallest cell varies from 0.1 to 0.5 micrometer and it is found in, waxaana laga helaa bacteria. selka ugu yar wuxuu kasoo bilaabanayaa 0.1 ilaa iyo 0.5 micrometer. waxaana laga helaa bacteriada ayaa laga helaa. dhinaca kale markaan fiirino marka largest cell measure 170 millimeter oo ku dhacsan 130 millimeter. waxaana waaye ukunta ee uu leeyahay and is the egg of the hen and ostrich. baasha loo yaqaano goronyada ukunteeda marka aad fiiriso aad bay weynta. waxaa la sheegaa yani 18 ukunta oo doorada oo kale ah inay u dhigantaa halka xabo muxuu ahaa ii sheeg ay leedahay goronyada ay leedahay. marka ayadaas ugu weyn maadaama anagu aan cell ka hadlayno. parts of the cell marka aan fiirinayno sawirkan waxaa nooga muuqdo muxuu ahaa ii sheeg waxaa nooga muuqdo plasma membrane oo ah kan ugu koreeyo mawjuudo. plasma membrane kaas ugu koreeyo endoplasmic reticulum waa kana ayadana. sidoo kale waxaa jirta waxa loo yaqaan nucleus waa tan ayadana halkan ku xiriirsan nucleus waa tan. sidoo kale mitochondria waa tan. lysosome oo kuwa waxa jijibin lahaa oo burburin lahaa. sidoo kale waxaa jira waxa loo yaqaan Golgi complex amase ayas marka aan leenahay hadda part of cell marka aan leenahay marka waxaan ka qaadan doonaa kaliya 3 qaybood ayaan ka soo qaadan doonaa. sawir kale inta noo qoran sigaasaan fiirinaynaa. fiiri marka hadda marka aan soo arkaynay selka yani waxaan dhahnay cell membrane ayaa jiro oo ileeyin animal cellka soo maaha iyo plant cellkaba. waxaa kasii koriyaan dhahna marka waxaa loo yaqaano cell wall oo gooni u ahaa plant cellka gooni u ahaa ayaa kasii koriyay soo maaha. fiiri marka anaga waxaan ka hadli doonaa oo cell partiska oo cellka marka aan leenahay waxaan ka hadli doonaa cell membrane oo ah kan ugu koreeya. marka cell membrane maxaa waaye asiga ugu koreeyo soo ma jeedid. asiga ugu koreeyo waa kana fallaartan anagu waxaan ku tusayso waa kana cell membrane inuu ugu koreeyo. kan labaad oo ka hadli doona maxaa waaye waxaan ka hadli doonaa sidoo kale waxa loo yaqaan nucleus. waa tan soo ma jeedid nucleus fallaartan waa taquu tilmaamayso nucleus. sidoo kale maxaan ka hadli doonaa waxa loo yaqaan
cytoplasm kan kala doona saddexdaas qaybaan ka hadli doonaa marka cell membrane marka waa kana waa uu koreeya cytoplasm waa kana nucleus maxaa waaye waa tana waxay taalaa centerka oo leeyahay cellka ayay taalaa aydan dhexdeeda marka maxaa laga helayaa oo nucleus gudaheeda maxaa ku jiro nucleolus ku jirto sidoo kale waxaa ku jiro waxa loo yaqaano chromosome-ka ku jiro chromosome-yadana way ku jiraan okay marka horaan uga soconaynaa waxyaabahan kale marka oo aan dhehayna hadaaya yani waxa waaye waxa loo yaqaano organelles mid walba oo kamid ah marka maxaa waaye shaqo qabtaa waxaan hana Soomaaliya marka shaqooyinka oo cell ku qabanayo inta badan waxa lagu qabtaa hanana organelles kuwa waxa lagu qabtaa maxaa ay sheeg mitochondria ribosome endoplasmic reticulum shaqooyinkan marka ayaga qabanaya taameysa waan arki doonaa mar baa laga hadlayaa insha Allah waxaan kormareynaa marka waxa loo yaqaan cell membrane-ka one of the most important parts of the cell is the cell membrane waxa leeyahay marka mid kamid ah waxyaabo ugu muhiimsan qaybaha uu leeyahay cellku waxa waaye cell membrane-ka the cell membrane acts as semi-permeable barrier wuxuu u shaqeeyaa marka muxuu ahay sheegay cell membrane-ka semi-permeable barrier yani asiga waxa waaye semi-permeable barrier waxa laga wadaa yani cellkan wixii la arkay kama soo gudbi karaan macnaha wixii la arkay kama soo gudbi karaan waxa waaye selection wuxuu ku soo sameynayaa waa dirbi ma ogtahay dirbi oo ku xiran meeshan waa ma ogtahay marka wixii la arkay kama soo gudbi karaan waxyaabaha qaar ayaa ka soo gudbi kara marka permeable semi permeable wuxuu ogyahay mid oo wax ka soo gudbaya laakiin wixii oo muxuu ahaa sheeg loo baahday kama soo gudbi wax kasta kama soo gudbayaan waan arkaynaa it allows only few molecules across it and hence the majority of the organically produced chemicals inside the cell marka waxa lagu leeyahay waxyaabaha ka soo gudbaya waxa waaye oo ogol yahay waxa waaye few molecules waxyaaba yar qayb yar oo molecules oo ogol yahay kuwaas oo ka soo gudbaya waa arkaynaa marka molecules oo cellka ka soo gudbaya oo muxuu ahaa sheeg waa arkaynaa ayaga waxa jira marka cellka waxa laga gudbinayaa laakiin wadooyinka loo maraya macnaha luqluq ala marsinaya ma fahamtay siyaabo kale loo gudbinayaa kuwana waxa waaye waxaas dhan u baahno way ka soo gudbi karaan cellka markay yimaadaan hore u soo gudbayaan baa ayaga okay the primary component of the cell are waxa waaye ayaduna soo celiya marka waa kana cell membrane nucleus and cytoplasm nucleus and cytoplasm are enclosed within the cell membrane marka cytoplasmka iyo waxa loo yaqaan nucleus waxay ku dhex jiraan cell membrane ay ku dhex jiraan that is also waxa loo yaqaanaa muxuu ahaa sheeg plasma membrane oo hadda cell membrane iyo plasma membrane maxaa waaye waa same waaye haddaad aragto marka plasma membrane iyo haddii aad aragto muxuu ahaa sheeg cell membrane same waaye cell membrane marka waa dirbiga kor oo wareegsanaa labadan marka inta ku dhex jiraan nucleus iyo cytoplasm kana inta ku jiraan waxay ku jiraan muxuu ahaa maano cell membrane ka koreeya macnaha intaas uu ka wada aydan it works to separate cell from another cell and also the cell from the surrounding medium shaqada marka maxaa waaye waa ilaa plasma membrane-ka amba cell membrane-ka maxaa waaye ayada shaqadeedu waxa waaye inay separate ku sameeyaan amba ay kala qaybiso cells from another cellsida inay kala because cells walba wuxuu leeyahay cell membrane u gooni uu leeyahay oo uu kala ilaalinaa cellsidan kala ilaalinayo sidoo kale wuxuu ilaalinayaa cellkan iyo muxuu ahaa sheeg medium-kan ama fluid-kan oo ku dhex jirana oo fluid-kan meesha yaalana wuu kala ilaalinayaa marka cell membrane-ka shaqada soo qabanaya plasma membrane is a porous and allows the movement of material or substance both in one and out marka plasma membrane-ka ama cell membrane-ka waxa leeyahay wuxuu leeyahay albaab ayuu leeyahay wuxuuna ogolaanayaa movement inay sameeyaan materialska ama substance-ga oo ay u sameeyaan inward and outward gudahana waxa ay soo galaan banaankana wax u baxaan oo ogolaanaya okay cytoplasm hadda waxaan ka soo hadalnaa marka waxa loo yaqaan cell membrane ama plasma membrane another important part of the cell is the cytoplasm qayb kale marka oo iyadna muhiim ah oo leeyahay cellku ama sabartiga kale muhiimka cellku leeyahay waay waxa loo yaqaan cytoplasm waay it is jelly like substance that is present between the nucleus and cell membrane waxa leeyahay marka cytoplasmka waxa waa jelly like substance waa waxyaabo sida jeelka camal ama kareemka camal u sameeysan kuwaas oo laga helo inta u dhaxayso muxuu ahaa sheeg nucleus-ta
iyo muxuu ahaa ii sheeg cell membrane-ka hadaan hore aan soo aragnay oo marka wuxuu ahaa kor waxaa ku daharnaa soo maha yacni dahar kor waxaa saarnay oo wareega kor waxaa saarnay muxuu ahaa ii sheeg cell membrane-ka waxaa ku xigay cytoplasm-ka ku xigay gudahana waxaa yaalay waxaa yaalay muxuu ahaa ii sheeg nucleus-ta ayaa taala marka kasoo qaad kan inuu yahay muxuu kasoo qaad cell membrane-ka inuu yahay kanna inuu yahay cytoplasm-ka inuu yahay kanna inuu yahay markaas nucleus yaa waa marka dirbiga kor waxaa jiro waxaa cell membrane-ka yaa jiro kan marka intee aale marka cytoplasm-ka intee aale marka intee aale Soomaha labadan ay u dhaxaysaa intaas uu ku tilmaamo marka wuxuu ku leeyahay present between nucleus and muxuu cell membrane-ka ay u dhaxaysaa there are number of other components or organelles of the cell that can be found in the cytoplasm waxaa jiro ku leeyahay marka number kale oo laga helayo muxuu ahaa isaga mise organelles kale oo laga helayo cytoplasm-ka ayaa jiro okay and these are mitochondria Golgi bodies iyo ribosome kuwan hadda hor saaran oo dhan iyaguna intay ku jiraan cytoplasm gudihiisa ku jiraan organelleska aydan organelles ay kamid tahay okay nucleus is believed to be the most important component of the living cells waxaa leeyahay marka nucleus waxaa la aaminsan yahay inay tahay muxuu ahaa ii sheeg tan ugu muhiimsan componentiga uu leeyahay living cells uu leeyahay waxa uu ka kooban yahay waxyaabo nool ay ka kooban yihiin nucleus is separated from the cytoplasm by the membrane known as nuclear membrane waa kan hadda muujido waxaa leeyahay marka nucleus-ta waxaa separation ku sameeya ama ka kala qaybiya oo cytoplasm-ka iyo nucleus-ta waxa u dhaxeeyo waxa loo yaqaan membrane oo ah nuclear membrane kaas ayaa kala ilaalinaya marka this membrane is also porous and allows the movement of material between cytoplasm and inside the nucleus waxaa leeyahay marka nuclear membrane-kan asigana sidoo kale wuxuu leeyahay albaabo wuxuuna ogolaanayaa inay kala gudbaan muxuu ahaa ii sheeg ama inay sameeyaan movement ay sameeyaan waxyaabaha cytoplasm-ka iyo ka imaanaya ee nucleus soo galaya ama soo baxay macnaha albaabkaas wuxuu u dhaxayaa moogta ayagu u dhaxayaa inay marka inside of the nucleus inay wax u kala gudbaan oo marka ogolaanaya asiga if you have microscope of high magnification you can see a smaller spherical body found in the nucleus. This is the nucleolus. waxaa lagu dhahaa marka haddii aad haysato microscope leh weynaysa macnaha ay sheeg bukaaca weyn ama saxadisada baasha loo dhaho adiga saa u taqaano marka microscope haysata microscope-ka marka wuxuu leeyahay bukaaca weyn bukaacada macnaha fiican uu leeyahay oo la weyneyn karo weyn uu leeyahay waxaad arkaysaa marka nucleus dhexdeeda waxaa ku jiro sidoo kale waxaa laga helayaa wax lagu nucleolus ayaa laga helayaa spherical body oo loo yaqaano nucleolus ayaa laga helayaa and beside the nucleus the nucleus also has a several thread-like structure known as chromosome sidoo kale waxaa laga helayaa marka haddii aan aragnay muxuu ahaa sheeg nucleus dhexdeeda nucleolus ma ku arkino sidoo kale waxaan ka helaynaa marka iyada salaf waxaa laga helayaa sidoo kale waxaa loo yaqaan chromosome ayaa laga helayaa waxaa lagu fiirinayaa microscope soo maaha chromosome carry genes and support transfer or inheritance of character from the parent to offspring marka chromosome-ka faa'iidadiisa maxay tahay wuxuu sidaa asiga geneska ayuu sidaa oo xogta ay ku kaysneed ayuu wadaa markaasuu dabeecadihii characteriskii wuxuu kala gudbinayaa caruurta iyo muxuu ahaa ay sheegay waalidka oo from parent to offspring dabeecadihii uu kala gudbinayaa maadaama dee geneska ay ku jiraan oo waxaas ay ku jireen okay nucleus works as control center of the activities of the cell marka nucleus waxaa leeyahay waxay u shaqeynaysaa inay bataa xarunta laga maamulayo shaqada cellka oo dhan ba iyada laga maamulaa entire content of a living cell is known as protoplasm inta kale soo harto ee cellku leeyahay waxaa loo yaqaanaa protoplasm it includes cytoplasm and nucleus waxaa kamid ah marka waxaa loo yaqaanaa cytoplasmka iyo nucleus ayaa kamid ah waxaa leenahay marka protoplasm is called waxaa loo yaqaanaa living substance of the cell waxyaabaha living substance oo cellka leeyahay waxaa loo yaqaanaa
protoplasm ayadaas ayaa loo yaqaanaa. Function of the cell waxaan fiirinaynaa marka shaqada uu qabanaya function of the cell. As you already know that cell is structural and functional unit of living. waxaa leeyahay sida hore usoo ogaataba cellku wuxuu ahaa aas-aaska qaab dhismeedka iyo shaqooyinka ilaa muxuu ahaa sheeg waxyaabaha nool oo living organismka. sidoo kale waxaan leenahay waxaan baran doonaa marka let us study six of most vital functions performed by cell. waxaan baranaynaa marka uu ku leeyahay 6 shaqo oo kamid ah kuwa ugu muhiimsan oo uu qabanayo shilku uu qabanayo. Structure and support. Cellku muxuu qabtaa inuu qaab dhismeedkii iyo muxuu ahaa sheeg supportna uu sameeyo wixii uu muxuu ahaa sheeg taageero uu muujiyo. macnaheedu maxay tahay? You know house is made up bricks. waxaa lagu dhahaa waxaad ogtahay gurigu inuu ka samaysan yahay blockade inuu ka samaysan yahay. Similarly an organism made up of cells. cellkan wuxuu ka samaysan yahay organism wuxuu ka samaysan yahay marka cells ayuu ka samaysan. maxaa waaye marka macnaheedu yacni structure-ka ee guriga yaa sameeyey blockade-ga sameeyey soo maaha. structure-ka organismka leeyahay yaa sameeyey cellka ayaa sameeyey. inaad fahamtaan rajaynaya. Though there are certain cells such as cholangioma and scleroderma are present for offering structure support. waxaa leeyahay marka waxaa jiro cells loo yaqaano muxuu ahaa sheeg cholangioma iyo scleroderma kuwaas oo marka muxuu ahaa ayagu diyaar u ah marka inay bixiyaan structure-ka iyo support-ka oo macnaha waxay qabanayaan ayaga macnaha isku dhaginta iyo qaab dhismeedka iyo wixii oo dhan ayagu waxay ka dhigayaan macnaha qayb weyn ay ka qaadanayaan marka. All cells generally provide structural basis of all organisms. waxaa leeyahay marka si guudba cellsku wuxuu bixinayaa all cells generally provide structural basis of organism. asaaba bixiyaba muxuu cellku dhammaanba muxuu ahaa sheeg qaab dhismeedka uu leeyahay organismka cellka ayaa mas'uulka ah. Okay, growth shaqooyinka uu cellku qabanayay kan koowaad muxuu ahaa structure and support, kan labaad waxa waaye growth. Okay, in complex organisms such as humans the tissue grow by simple multiplication of cell. waxaa leeyahay marka complex organismka sida bini aadamka oo kale marka la fiiriyo tissue-gooda growth ayuu sameynaya wuxuuna ku sameeyaa simple multiplication muxuu ahaa sheeg multiplication of cells. growth uu sameynaya sababtuna waxay tahay waxaa badanaya cellka ayaa badanaya multiplication sameynaya. Hence cells are the responsible for the growth of organism. marka sidaa darteed cellsyadu waxay mas'uul ka yihiin inuu growth uu sameeyo ama korisho uu sameeyo organismka. The entire thing takes place via process of mitosis. marka waxyaabaha noqonaya ku dhacaan waxaa loo yaqaano mitosis ayuu ku dhacaya. hadday hore usoo aragno Soma cell division-ka marka aan dhahaynay pre-existing cell mitosis iyo meiosis ayaga marka waa ka hadli doonaa hordhici mayna. hadda waxaan u baahanaa kaliya inaan fahanno cells wuxuu yahay shaqooyinka uu qabanaa laakiin mitosis uu ku dhaco meiosis uu ku dhaco waxaas oo dhan waan baran doonaa insha Allah. Transport waa shaqada saddexaad. structure and support, growth, kan kale maxaa waaye transport. transportation oo sameynaya cells important the nutrients that are used in different chemical process which takes place inside them. waxaa leeyahay marka celsyadu waxay lagama maarmaan u yihiin inay gudbiyaan inay sameeyaan muxuu ahaa sheeg waxa loo yaqaano nutrition-ka ama nafaqada taasi oo loo baahan yahay marka la isticmaalayo marka la qabanayo muxuu ahaa sheeg ama se laga isticmaalayo different chemical process. tusaale ahaan digestion waxaa la sameynaya muxuu ahaa sheeg metabolism-ka la sameynaya shaqooyinkaas ka dhacaya marka cellka gudihiisa ka dhacaya waxay u baahan yihiin soo maaha wixii loo qaban lahaa ay u baahan yihiin. marka maxaa waaye transportation of sameynaya cells important nutrients that are used in different chemical process which takes place inside them. marka shaqooyinkan la qabanayo waxay u baahan yihiin wixii loo qaban lahaa ay u baahan yihiin energy muxuu ahaa sheeg marka ayaga sameynaya marka nutrients ayaga sameynaya. As a result of this process waste product is produced. marka shaqooyinkan marka ay dhacaan oo chemical process-kii meesha digestion ka dhacay shaqooyinkii yaa dhacay waxaas oo dhan marka ay dhacaan marka meesha maxaa ka imaanayo waste product ka imaanaya waxyaabo wasakhaha ka imaanaya. cells then marka work to get rid of waste muxuu ahaa of this waste. cells markaas maxay qabanayaan oo shaqadoodu maxay tahay banaanka waxay iska saarayaan macnaha waxay qabanayaan waxyaabii wastiga wasaqdaha ay iska saarayaan markaas. Okay,
In this manner, the small molecules like the small molecules like oxygen, carbon dioxide, ethanol pass through the cell membrane by diffusion. waxaa lagu leeyahay marka moleculeada qaar sida oxygenka, carbon dioxide-ka iyo ethanolka waxay maraan cell membrane-ka waxayna ku maraan qaab loo yaqaano diffusion ayay ku marayaan. This method is known as waxaa loo yaqaanaa passive transfer. marka diffusionka waxaa ka wadnaa waxa waaye yani markay carbon dioxide-ka iyo muxuu ahaa oxygenka iyo markan ay cell membrane-ka iska marayaan ilaa cell membrane-ka day hore waxaad noo soo dhana moogta wixii la arkay ma bixi karaan soo ma dhihino few molecules-ka unbaa la ogolaanaya. Okay, passive transport oo micnihiisu ay tahay marka passive transport marka aan leenahay waxa waaye yani looma baahna energy waxa in la bixiyo looma baahna energy la bixiyo looma baahna marka oo kuwan ay silka gudbayaan caadi u gudbayaan. Other hand, large molecules like protein, polysaccharide go in and out of cell via active transport. يعني waxaa leeyahay marka large moleculeska sida proteinska iyo polysaccharideska ayaga macnaha cellka gudihiisa marka ay rabaan inay ka baxaan aba ay soo galaan waxay u baahan yihiin energy ay u baahan yihiin waxayna ku baxaan qaab loo yaqaano active transport ayaana la dhahaa oo energy la isticmaali doonaa. Okay, energy production inay energy ay soo saaraan shaqada oo qabanaya cellka soo maaha. Organisms need energy to perform different chemical reactions. waxaa leeyahay marka organismku waxay u baahan yihiin energy ay u baahan yihiin si ay u qabtaan shaqooyin kala duwan oo chemical reactions ay u dhacaan. In plantiska marka la joogo energy comes from process of photosynthesis while in animal energy comes via respiration. waxaa leeyahay marka plantiska marka la joogo ama dhirta marka la joogo energy-ga ayaga waxay ka helaan process waxay ku helaan loo yaqaano photosynthesis oo ah inay ilayska ay kasoo helaan muxuu ahaa ii sheeg energy-ga ay ka helaan. sidoo kale muxuu ahaa ii sheeg ayaga waxay qaadanayaan ama energy-gooda waxa waaye carbon dioxide-kii oo kale ayaa ku dhacayo adiga marka process-kaas ay ku qaadanayaan waxaa loo yaqaanaa photosynthesis ayaa loo yaqaanaa. Animalkana waxay energy-ga ku helaan waxaa loo yaqaanaa respiration. macnaheedu waxa waaye annaga hadda waa neefsanaa soo maaha marka aan neefsanayna marka waxaa dhacayo hawana waa qaadanaynaa oxygen waa qaadanaynaa carbon dioxide-na banaanka u soo saaraynaa. marka oxygen-kaas gudaheena gelayo ayaa waxaa la sameynayaa marka waxaa looga faa'iideysanaa asiga energy ahaan sababtoo waxay tahay ama cuntadii lagu dhijinayaa ama muxuu ahaa ii sheeg sugarkii lagu dhijinayaa oo sugartii lagu dhijinayaa si loo soo saaro energy. marka process-kaasna waxaa loo yaqaanaa marka waxaa loo yaqaanaa respiration oo macnaheedu tahay slow respiration. anaga marka energy-ga meeshaasaa ka helaynaa ama animalka energy-ga meeshaas ka helaa asigana. Okay, metabolism and reproduction. Cell is responsible for metabolism that include all chemical reactions that takes place inside an organism to keep it alive. waxaa lagu leeyahay marka cellsadu waxay mas'uul ka yihiin muxuu ahaa isheg metabolismka ama se metabolismka marka wuxuu yahay catabolism iyo anabolism waxna in wax la burburiyo iyo in muxuu ahaa isheg wax la dhiso oo molecule la jijibinaya ama kuwa kale la sameynaya shaqadaas la qabanaya. marka kuwaas waxaa kamid ah dhammaan marka wuxuu metabolismku waxaa kamid ah chemical reactions ka kamid ah kuwaas oo ka dhacaya cellka gudihiisa. And a cell helps in reproduction by the process of mitosis. cellku marka wuxuu qayb ka yahay in la sameeyo muxuu ahaa taran in la sameeyo process loo yaqaano mitosis ayuuna ku dhacaya and meiosis. Okay, farqiga u dhaxeeya marka muxuu ahaa ii sheeg plant cell iyo animal cell farqiga u dhaxeeyaan fiirinayna asigana. There are some difference between plant and animal cell structure and muxuu ahaa animal cell structure and functions. waxaan fiirinaynaa farqiga marka u dhaxeeyo plant cell iyo animal cell marka la fiirinayo structure ahaan iyo shaqo ahaanba marka la fiirinayo. wuxuu ku leeyahay marka we have pointed out some of the notable differences. meeshaan ku sheegaynaa marka farqiga u dhaxeeyo. Okay, plant cell-kan ku hormarayna plant cell waxaan leenahay wuxuu leeyahay cell wall ayuu leeyahay which surrounds the cell membrane. haddii hore aan soo sheegnay plant cell-ka waxaa leeyahay cell membrane
kaasoo ku hareereysan ama ka koreeya cell membrane oo ay ka wada sinaayeen. Balanta cellka marka aan joogno there are chloroplasts which help people in photosynthesis. marka aan ka hadlayno balanta cellka, marka aan ka hadlayno waxay leeyihiin wax loo yaqaano chloroplast ay leeyihiin, kuwaas oo ka caawinaya marka inay helaan muxuu ahaa ay sheegay energy-ga inay helaan, oo macnaha balantigu inay energy-gooda ay helaan. balanta cellka marka aan joogno sidoo kale waxaan leenahay waxaa jiro wax loo yaqaano large vacuole ayaa jiro in comparison to the muxuu ahaa ay sheeg animal cellka marka loo barbar dhigayo. marka animal cellka marka loo barbar dhigayo vacuole weyn ayay leeyihiin. balanta cellka marka la fiiriyo the cells in the plant are more structured. marka cellka hadda waxay leeyihiin the cells in the plant marka aan fiirinayno cellsida ay leeyihiin, marka balantiga ay leeyihiin ama cellsida ay leeyihiin more structure waaye, structure-kooda aad u adag. sababtu maxay tahay? waxay leeyihiin cell wall ay leeyihiin, soo maaha? cell wall ay leeyihiin. animal cellka marka fiiri marka asigana maxaa waaye? animal cellka marka aan fiirino animal cell waxaa leeyahay only half wuxuu leeyahay cell membrane bis uu leeyahay. meeshaas maxaa ku baxay? cell wall-kii ku baxay. animal cellkana waxay leeyihiin sidoo kale waxa loo yaqaan blob ay leeyihiin. meesha ay kuwan lahayn large vacuole, kuwan waxay leeyihiin waxa loo yaqaano blob ay leeyihiin. marka blob waxa waaye waa muxuu ahaa ii sheeg waa character oo lagu yaqaano muxuu ahaa ii sheeg animal cellka character lagu yaqaano waaye ama wax lagu aqoonsanayo. okay, su'aashana imaada marka waxaa loo dhahay what is the name given to the muxuu ahaa to cell without any organized nucleus. waa shaqada marka waxaa laga rabaa lagu dhahay magacee la siinayaa cellka aanan lahayn organized nucleus diyaarsan aanan lahayn. cells without a well organized nucleus and cell which lack muxuu ahaa sheeg definite nuclear membrane waxaa loo yaqaanaa prokaryotic cell ayaa loo yaqaanaa. markii hore soo sheegnay la waayo oo cellkan macnaheedu waxay tahay yani nuclear material uu lahaa laakiin nuclear membrane ma lahayn. moogtahay marka hadduu nuclear material leeyahay laakiin nuclear material uu leeyahay laakiin nuclear membrane ma lahan, markaas macnaha ma lahan. moogtahay yani muxuu ahaa sheeg definite ama se definite ma lahan, definite muxuu ahaa sheeg nuclear ma lahan. moogtahay marka nuclear membrane ma lahan. cellkaas marka muxuu iska noqonayaa yani organized maaha. marka nucleus diyaarsan maaha. marka nucleus diyaarsan maaha. markaas maxaa leenahay prokaryotic cell. waxaan soo gaarnay marka dhammaadka casharkeena. waxaan rajeynayaa inaad wax ka fahmi doontid. waxa aan qalday waxa waaye waxay ka ahaadeen nafsi shaydaanay ka ahaadeen. waxa aan saxayo ilaahay waafajiyey. wixii qalad ah oo aad aragto oo casharka aad ku aragtana waxaan rajeynayaa inaad noo soo gudbiso oo gmailkaas aad kusoo dirtid. waxbaan kala faa'iideysanaynaa mahane ma aha yani aqoon laga badan yahay kaliya maaha. annaguna inaan wax faa'iidnaan diyaar u nahay. casharkeena intaas uu ku egyahay.